kulanti waxaan daawadaal kuna soo dhawaada warka subaxnimo ee warbaahinta ogaal media qodobada wararkeena waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha dalka oo ka hadlay dilkii loo geystay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdikariim Dhagajoon. Maha Salaad waxa uu waji kale u yeelay dilkii loo geystay Dhagajoon isagoona si dadban u weeraray gudoomiyaha gobolka Banaadir. taliyayaal askar loo xiray dilkii gudoomiyaha iyo banaabax hadda ka soconaya magaalada Muqdisho ayaana daawadaal barnaamijkeena ku soo qaadan doona. waa 21 daawadayaal bisha January 2021 qodobadaas oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal. Wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa war ka soo saaray dilkii xalay Muqdisho loogu geystay Allah u naxariisto gudoomiyihii degmada Hodan marxuum Cabdikariim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon. ra-iisul wasaare Roble ayaa ugu horeyntii tacsi u diray qoyskii asxaabtii uu ka baxay marxuumka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray gudoomiyaha uu ku dhintay faluu nasiib daro ku tilmaamay. waxa uuna ra-iisul wasaaraha yiri waxaan tacasi tiiraayan la u diray qoyskii asxaabtii marxuumka Dhagajoon gudoomiyihii degmada Hodan oo ku geeriyooday fal nasiib daro oo xalay ka dhacay Muqdisho. waxaan eebe uga baryaa inuu u naxariisto jannadiina ka waraabiyo ehelkii iyo asxaabta samir iyo iimaan uu ka siiyo ayuu yiri ra-iisul wasaaraha. ugu dambeyn ra-iisul Roble ayaana faray laamaha amniga inay baaris dhab ah ku sameeyaan dilkii gudoomiyaha maamulka degmada Hodan. waxaan farayaa buu yiri hay'adaha ammaanka ee ku shaqada leh inay baaritaan rasmi ah oo dhameystiran ay ku sameeyaan dhacdadaasi nasiib darada ayuu sii raaciyay. UN Cabdixakiim Dhagajoon oo xalay saqdhexe lagu toogtay agagaarka isgoyska howlwadaag ayaa shalay dib dalka ugu soo laabtay isagoona ka yimid dalka Turkiga oo caafimaad ahaan loogu qaaday kadib dhaawac ka soo gaaray qarax miino oo lala eegtay bishii November ee sanadkii tagay. xildhibaan Maha Salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee waqtigooda sii dhamaanaya ayaa isagana si adag uga hadlay dilkii loo geystay gudoomiyaha degmada Hodan. waxa uuna Maha Salaad marka hore cambaareeyay hadal ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo ah in gudoomiyaha ku dhintay rasaaseen dhex martay ciidamada ammaanka iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa. xildhibaanka ayaana hadalka Cumar Finish ku tilmaamay inuu yahay gaf weyn oo ka soo yeeray markaasna ka fog xaqiiqda iyo sida ay wax u dhaceen. sidoo kalena wuxuu intaasi ku sii daraynayay hadalkan uu yahay mid raadrasho ah oo loogu qarinayo dadkii ka dambeeyay dilka gudoomiyaha sida hadalku u dhigay. waxa uuna yiri waxaan cambaareynaya hadalka gafka ee ka soo yeeray gudoomiyaha Cumar Finish gudoomiyaha Cabdikariim Dhagajoon israasaaseen ayuu ku dhintay. waxaanan u aragnaa in gudoomiyaha Cumar iyo maamulkiisa bilaabeen raadrasho si loo qariyo raadka dambiilayaasha falka geystay ayuu qoraalkiisa ku sii raaciyay. Maha Salaad ayaan intaasi ku sii raaciyay gaari la hubi markii uu gudbay soo laabashadiisana loo diyaar garoobay ciidamo xoog ahna loo diray si ay u sheegeen buu yiri saraakiisha tagay goobta falku ka dhacay sabab loogu sheegay rasaasanayeed waa wax aan la qaadan karin ayuu gudoomiyaha Cumarna waxaan ugu baaqaynaa buu yiri in uu ka cudur daarto hadalkaasi. ugu dambeyn wuxuu ku baaqay in si degdeg ah cadaalada loo horkeenay saraakiishii askartii ka dambeysay toogashadii loo geystay gudoomiyihii degmada Hodan. waxaan ugu baaqiyaa mar labaad in cadaalada loo horkeenay saraakiisha amarka bixiyay askartii fulisay weerarkaasi foolka xun ee lagu qarajiyay gudoomiye Cabdixakiim. si kastaba dowladda Soomaaliya haatan wada baaritaan dheeraad ah ku aadan dhacdadaas iyadoo xabsiga la dhigay saraakiil askar iyo ciidamo boolis ka tirsanba. isla warkaas ayaan ku jirnay waxaa hadda magaalada Muqdisho ka socda dibadbax ay dhigayaan dhalinyaro kaasi oo la sheegay in ay xireen gaadiidka isticmaalaya iyadoona rabshado ay hadda bilaabatay. waxaana banaanbaxayaasha ay gubayaan taageerka baabuurta mararka qaarkoodna dhagax ay tuurayaan taas oo hakad gelisay dhaqdhaqaaqa tarabuunka. jidka cisbitaal Digfeer loo aadayayna dadka isku soo baxay ay xirteen iyadoo jawigu uu weli yahay mid aan deganayn. ila madax banaan ayaana sheegay in dibadbaxayaasha ay ka soo horjeedaan dowladda Soomaaliya isla markaasna dhalinyarada careysan ay ku dhawaaqayaan eeyakanana madaxweyne Farmaajo. mararka qaar rasaaseynta ayaa dhacaysa lamana oga cidda ridays xaaladda ayaana cakiran mana jira ciidamo amni ah oo goobta soo gaaray urada taageerada la gubay ayaana cirka isku sii shareeraya. waxaana dibadbaxayaashan ilaa hadda loogan cidda soo qabanqaabisay dibadbaxyadooda ku dhigay xilli maanta magaalada Muqdisho la sheegay inay ka jirto baaritaano ay si dowladda amniga gaar ahaan laamaha amniga kuwaasoo baaraya dilkii xalay loo geystay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiim Dhagajoon oo shalay dalka dib ugu maalintii Arbacada dalka dib ugu soo laabtay. isla warkaas ayaan ku jirnay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaaday tallaabo degdeg ah kadib dilkii xalay loo geystay gudoomiyaha. waxaana dowladda wararka ay sheegayeen in saldhigga sida warbaahinta ogaal heshay
aan helnay sheegaysa in saldhigga la dhigay taliyaal ciidan iyo askar ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kadib dhacdadaas. sidaan xogta ku helnay waxaa ilaa hadda xabsiga la dhigay taliyaha saldhigga booliiska degmada Holwadaag gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamuud iyo taliyaha saldhigga Waabari gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir Moohin, kuwaas oo la sheegay in xalay ay ku sugnaayeen goobta uu dilka ka dhacay kuna qornaayeen heegan ahaan. sidoo kalena wararka ayaa intaasi ku daraya in la xiray ilaa 7 askari oo iyagana ku sugnaa barta kontarool ee lagu dilay gudoomiyaha Cabdixakiin Dhagajuun, waxaana haatan socda baaritaano dheeraad ah oo ku aadan sida uu dhacay dilka gudoomiyaha. maamulka gobolka Banaadir oo urkacay gudoomiye Cumar Finish ayaa sidoo kale soo saaray amar degdeg ah la xiriira in baaritaan dhab ah lagu sameeyo shaqadaas, iyadoona guddi ka kooban 7 xubnood loo saaray aaska marxuumka. si kastaba gudoomiyaha la dilay ee maamulka degmada Hodan ayaa toogashadiisa waxa ay timid saacad kadib markii uu ku soo laabtay dalka dibadiisa, isagoona arrimo caafimaad uga soo laabtay dalka Turkiga oo uu ku sugnaa muddo 3 isbuuc. ugu dambeyn daawadayaal, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bilaabay inuu wax ka bedelo qaar ka mid ah siyaasadihii ugu waaweynaa Donald Trump saacado kadib markii la dhaariyay. ma jiro waqti la luminayo markay timaado wax ka qabashada xasaaradaha aan wajahayna, ayuu barta Twitterka ku soo qoray xilli uu ku sii jeeday aqalka cad. Biden ayaana ugu horreyn saxay 15 amaro sare waxaana loogu qabanaya xanuunka coronavirus-ka. waxa uu ka mid ah kuwa kale waxaa ka mid ah sharciga muranka dhaliyay ee mamnuucista safarka lagu tegi karo Mareykanka ee dalalka qaar uu ku soo rogay madaxweynaha isagoo xilka kula wareegay ee Donald Trump. Trump wuxuu Mareykanka ka mamnuucay dadka ka imaanaya dalal uu arkay inay keeni karaan khatar amni. qodobka ku saabsan qaadida xayiraadda safarada waxaa dalalka uu saameynayo ka mid ah Soomaaliya. haddii la hirgeliyana arrintan waxay rajo yeelan doontaa dad badan oo qaxootinimo u rajaynaya inay ku aadaan Mareykanka iyo kuwa baasaboorka Soomaaliga ahba ku safri kara. waxaa kaloo uu Biden mudnaan siin doonaa inuu Mareykanka ku ciyo heshiiskii isbeddelka cimilada ee Paris Agreement. Biden ayaana tallaabo u qaadi doona inuu Mareykanka dib ugu celiyo xubinnimadii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo loo soo hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gabay WHO. 100 milyan oo talaalka koronaha ayaa la filayaa in la fuliyo 100 maalmood ugu horeysa maamulka Joe Biden ayaana doonaya inuu dardar geliyo talaalka fayraska oo dhawaan uu bilowday. waxa uu kaloo la filayaa Biden inuu tallaabooyinka qaado sidii loo horumarin lahaa howlaha baaritaanka fayraska iyo weliba in la kordhiyo qalabka la isaga difaacayo cudurka coronavirus-ka. Trump ayaana waxa uu ahaa madaxweyne mayl adag islamarkaasna dalka Mareykanka gacan bira ku hay, waxa uuna waxyaabo badan uu ka bedelay taariikhda dalkaasi Mareykanka. Joe Biden oo hore u soo noqday madaxweyne ku-xigeen islamarkaasna shaqada siyaasadda muddo ku soo jira ayaa la filayaa inuu isbeddel xooggan ku sameeyo siyaasadda dalkaasi Mareykanka oo muddo 4 sano ahayd mid jahwareersan. intaas ayaan daawadaal ku soo gabagabinayna warkaas waxnimo ee warbaahinta ogaal. haddii aad ka mid tahay saaxiibada nagu cusub fadlan subscribe saar lana soo asxaabtaada tan iyo kulanti dambe sidaas nabadgelyo.